sheekooyinkii qur-aanka kariimka ah waana sheekadii nebi saalex. dembiyadii ay galeen markii ay eedeen oo reer caad la rogay ayuu eebbe reer samuud wuxuu dhaxal siiyey dhul iyo hanti wixii ay lahaayeen. si ka daran sidii reer caad ayay arladii u camireen, ilo biyo ah ayay jeexeen, beero waaweyn ayay abuureen, daaro dhaadheerna way dhisteen. waxay gaareen buuraha dhexdooda inay guryo ka samaystaan si ay uga gaashaantaan wixii dhibaato adduun ah oo laga yaabo in lala soo maago. barwaaqo iyo raaxo aan soohodin lahayn ayay ku noolaayeen, ha yeeshee mahadnaq eebbe ayaa laga waayey, inay shukriyaanna way diideen. kibir iyo qooq bay dhaqanka dhigteen, xaqii ayay maalinba maalinta ka dambaysa ka sii fogaadeen. eebbe intay ka jeesteen ayay sanamyo caabudeen, awooddiisa u gaarka ah ayay uunkiisa la wadaajiyeen, aayadihiisana way arki waayeen. waxay u maleeyeen barwaaqadaas inay abid ku waari doonaan, raaxadaasina ay tahay mid ay cidlo ka heleen oo loo dayn doono. mar dambe ayuu eebbe u soo diray nebi saalex, nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ka mid ahaa kuwooda ugu qolada wanaagsan, ugu dulqaadka badan, uguna caqliga wacan. kolkaas buu ugu yeedhay cibaadada eebbe oo ku booriyey inay mid ahaanshihiisa qiraan. maxaa yeelay isaga ayaa ciid ka abuuray oo dhulka ku camiray kuna ammaanaystay. isaga ayaa siiyey barwaaqooyinkiisa, kuwooda muuqda iyo kuwooda aan muuqanba. wuxuu ka reebay eebbaha awoodda leh inay ka doortaan sanamyo aan dhib iyo dheeftoona u haynin oo aan berri ka maalin agtiisa waxba uga tari doonin. wuxuu xusuusiyey hilbaha ay yihiin iyo xidhiidhka xigtanimo ee isaga iyo iyaga ka dhexeeya. waa tolkii, welibana waxay ka soo wada jeedaan jirib qura. wuxuu jecel yahay wanaaggooda, ma aha nin xumaantooda raba amaba doonaya inay dhibaato sina u soo gaadho. wuxuu faray inay eebbe dembidhaaf weydiistaan, ugana toobad celiyaan gafafka ba'an ee ay faraha kula jiraan. wuxuu u sheegay eebbe inuu yahay mid qofkii baryo u dhow, kii wax weydiista ka yeela, kii u noqdana maqli og. reer samuud dhegihii baa awdmay, laabtii baa laga ooday, indhahoodii oo 5 ahna waxbay ku arki waayeen. nebinimadii saalex ayay diideen, fariintii uu sidayna way ku jeesjeeseen. waxay ku andacoodeen dacwadiisu inay tahay mid xaqa ka fog oo runta ka durugsan. waxay ku cambaareeyeen kuna canaanteen hadalladaa oo kale inay afkiisa ka soo baxaan, isagoo mar walba ahaan jiray nin caqli wanaagsan oo tarawacan lagu yiqiin. waxay ku yidhaahdeen, saalaxow, waxaannu kugu ogeyn nin garaad badan oo talada wanaagsan aan seegi jirin. maskaxdaada wacan darteed waxaannu kuu kaydsanaynay maalinta dhibaatana soo food saarto. waxaannu islahayn maalinta ay arrini murugto xaggiisa u carara oo caqligiisa u baxsada. waxaannu islahayn wuxuu gaashaan idinkaga noqon doonaa waayaha dhibta xambaarsan ee dunida. bal maxay yihiin waxaan aad ku hadashaye aan la yaabannahay? waa maxay waxa aad noogu yeeraysaa? ma waxaad naga reebaysaa wixii ay aabbayaasheen caabudi jireen inaan caabudno, wixii aannu ku korray ee aannu ku indhadilaacsannay? waxa aannu ugu yeerayso shaki baannu ka qabnaa, hadalkaaguna geli maayo. fariinta aad sidaa inay run tahay kuma kalsoonin. dayn mayno wixii aannu aabbayaasheen ka soo gaarnay. hawaawiga iyo baadinimada aad la wareegaysana marnaba kugu raaci mayno. wuxuu ka waaniyey hadalkiisa inay ku gacan sayraan. diintii uu fidinayay nuxurkeeda ayuu si cad ugu sheegay. barwaaqada uu eebba siiyey ayuu xusuusiyey. cadaabkiisa iyo qabashadiisana wuu ku cabsiiyey. wuxuu u caddeeyey gudbinta dacwada eebbe inaannu dheef kaga rabin, madaxnimona aanu ku doonayn. hanuunka uu ugu yeerayo iyo talada wanaagsan ee uu siinayo kagama rabo inuu mushaar kaga helo amaba ay abaalgud ku siiyaan. abaalkiisa eebbe ayuu ka sugayaa, wuxuuna erayadaa kaga saarayay shaki kasta oo laga yaabo inay ka qabi karaan lilaahinimadiisa. dadweynihii danyarta ahaa qaar ka mid ah ayaa rumeeyey, ha yeeshee madaxdii uu kibirku maskaxda kala tegey way diideen. qooqoodii ayay ku adkaysteen. waxay ku mintideen caabudkii sanamyada, waxayna ku yidhaahdeen, saalaxow, waa lagu galay oo waxaad noqotay maraan. waxaannu ku mala weynahay in lagu falay, taasina ay kuu keentay wax aanad aqoon u lahayn in aad isaga hadaaqdo. qof annaga oo kale ah ayuunbaa tahay. nagama qolo fiicnid oo nagama sharaf badnid, nagama hodansanid, nagamana magac dheerid.
waxaaba naga mid a qaar kaa mudan nebinimada iyo gudbinta fariinta aad sheegayso. runtii hawshan aad faraha la gashay waa mid aad ku doonayso inaad magac dheer ku yeelato oo aad reeraha madax ugu noqoto. waxay isku dayeen inay Saalax diintiisa ka weeciyaan oo gudbinta dhambaalka Eebbe ay shaki ka geliyaan. waxay ku andacoodeen haddii ay isaga raacaan inay waddada toosan ka bayrayaan oo ay baadinimo ku dhacayaan. beentoodii intuu ka jeestay kuna gacan sayray ayuu ku yidhi, tolow anigoo haysta xujo cad oo xagga Eebbe aan ka helay, anigoo ku naaloonaya naxariistiisa, hubaashii anigoo labadoodaasba u haysta, haddaan idin raaco oo aan waddadiinna qaado Eebbana caasiyo, yaa cadaabkiisa iga celinaya, ciqaabkiisase yaa gaashaan iiga noqon doona. been hawaasiyo iyagu beenta abuura ayuunbaa tihiin. markay arkeen sida uu isugu kalsoon yahay ee uu xaqa ugu dheggan yahay, ayay madaxdii kibirtay ee reeruhu waxay ka baqeen dadka raacsana inay bataan, kuwa hiilka u ahina ay kordhaan. waxay qaadan kari waayeen inuu noqdo hanuuniyaha tolka ee maalmaha guuldarrada loo ciirsado, inuu ahaado xidig iftiima oo kolkay dhibaata timaado xaggiisa loo cararo. shaki kuma jiro inuu dadka u horseedi doono wax Eebbe u dhoweeya, kana reebi doono wixii ka fogeynaya. sidaa darteed waxay ka baqeen maamulka dowladdoodu inuu burburo oo awooddoodu meesha ka baxdo. waxay ku tashadeen dadweynaha iyo isaga inay shaki kala geliyaan oo ay taagdarradiisa dibadda u soo saaraan. markaas bay weydiisteen inuu u keeno astaan ama calaamad runtiisa muujinaysa iyo mucjisad muuqata oo dhambaalka uu sido lagu aamini karo. markaas buu inta farta ugu fiiqay tulud geela oo u muuqata iyagii ku yidhi, hashaasi iyada keligeed ayaa biyaha kal iska leh, idinna kal baad leedihiine faraha ka qaada dhulka Eebbe ha daaqdee, xumaanna ha kula kicina. markaas ka hor weligood ma ay arag hal biyahooda la qaybsata oo maalinna iyada loo daynayo, maalinna ka qadaysa oo intooda kale u dhaafaysa. shakino kuma jiro Saalax inuu dareemay sida ay gaalnimada ugu madax adag yihiin iyo sida ay dowdarrada ugu dheggan yihiin. shaki kuma jiro inuu ogaaday xujada runta ahi sida ay ruuxa baadilka wata uga naxiso ee ay ugu horseedi karto inuu xumaan ku kaco. sidaa darteed waxa uu ka baqay inay hasha dilaan, isaga oo uga digaya inay waxyeello u geystaan ayuu ku yidhi, yaan cadaab degdeg ahi idin haleeline, wax dhibaato ah hashaa ha u geysanina. intii muddo ah ayay hashaasu dhex joogtay iyadoo daaqaysa dhirta uu Eebbe arladiisa ka soo saaray. biyaha iyada ayaa kal iska lahayd, kalna way ka qadi jirtay oo uunka kale ayaa lahaa. shaki kuma jiro hashaas inay dad badan xagga Saalax u soo jiiday kadib markay hubsadeen dhambaalka uu sidaa inuu run yahay, ayna u caddaatay nebi dhab ah inuu yahay. taasina waxay argagax ku riday madaxdii kibirka badnayd ee qoladiisa, kuwaasoo ka baqay inay dowladdoodu burburto, meeshana ay awooddoodu ka baxdo. dabadeed qaarkii tacagta daraa ee iimaanku qalbigooda buuxiyey, xaqana u dhaganuglaaday, ayaa waxaa la hadlay kuwii madaxda ahaa ee kibirku indhaha tiray. waxay ku yidhaahdeen, ma waxaad og tihiin Saalax inuu yahay miduu Eebbe soo diray? markaas bay ku jawaabeen inay yihiin kuwa fariinta uu sido rumaysan. jawaabtaasise qalbigooda ma jilcin, qooqoodiina waxba kama dhimin. waxayba kor ugu dhawaaqeen xaqdiidadii lagu yiqiin, waxayna sheegeen waxa ay kuwaasi rumaysteen inay iyagu ku gaaloobeen. suuragal waxa ah hashu inay ahayd waa hashi Saalaxe, hal ballaaran oo geela kale ka duwan, dabadeedna xoolahoodii iyo geelashoodii cabsi gelisay, sidaas awgeedna ay ku naceen. ama waxaa suuragala inay biyaha ka hor joogsatay oo iyagoo aad ugu baahan kalkii ay iyadu lahayd iyo maalintii waraabkeeda. ama waxaa suuragala xumaantii naftooda ku jirtay inay ku qasabtay xujada nebigu wato iyo mucjisadiisaba inay la diriraan, maxaa yeelay waxay arkeen iyada oo dad badani daraaddeed xaqa ku raacayo. waxay ka baqeen kuwaas tiradoodu inay sii korodho, dabadeedna inta hiilkiisa iyo raaciddiisa u heelani ay arlada meel walba kaga faafaan. sababahaa saddexda ah mid ka mid ah amaba saddexdooda oo wada jira ayaa laga yaabaa inay ku xambaartay hashaas inay boqon gooyaan oo dilaan, inkastoo haddii ay wax xumaana u geystaan looga digay cadaab xun iyo dabargo ay eedaani inuu ku dhici doono. waxaa loo marayn karaa reer Saalax inay hashaas u arkeen halis ba'an iyo shar aan soohdin lahayn. in badan ayay fakereen oo tashi ku raageen.
waxaan ku malaweynahay inay dilkeeda ka baqeen oo ay ka yaabeen haddii ay nafta ka jaraan inay dhibaato ka soo gaari doonto. mar walba oo ay ku soo duulaanba dib bay u noqon jireen. niyad xumada naftooda ka buuxday ayaa horey u sii riixaysay, cabsidoona gadaal bay u soo celinaysay. waxay ku dhici waayeen inay qori ku tuuraan. ninkii soo bixi lahaa oo falkaas xun u fulin lahaa ayay iska waayeen. markii dambe ayay u bayreen xagga dumarka, bal inay geesinimo ku biiriyaan, falkooda xunna ku kaalmeeyaan. iyaguna quruxdooda iyo naagnimadooda ayay ku gorgortameen. oo raggu ma diidi karaa haweenay qurxooni amar ay farto iyo wixii ay ka doonto. rabitaankeeda oo la fuliyaa sow ma aha waxa ay rag oo idili u tartamaan. waxaa isa soo bandhigtay inan gob ah oo qoys sharaf badan ka dhalatay. waa saduuq ina Maxiye oo nin la yidhaahdo Misdac ina Maharaj u ballanqaaday inay guursan doonto haddii uu hasha boqon gooyo, taasoo ahayd xujada cad iyo astaantii muuqa dheerayd ee Nebi Saalax. waxaa haddana dibadda u soo baxday habartii gaasha ahayd ee Cunaysa la oran jiray. waxay la faqday Qudaar ina Saalif, waxayna u sheegtay gabdhaheeda middood inay u dhisi doonto haddii uu boqon gooyo hasha Saalax ee dadku ka daba dhacay, ololka iimaankana uunka laabtiisa ku shidaysa. hashaas iyaga hoy iyo harsi u diiday oo biyahooda cabbaysa, geeloodana ka didinaysa. waxay u sheegtay yaradka ay Qudaar ka rabtaa inuu yahay dhiigga hashaas oo keliya. labadii ninba wixii loogu ballanqaaday ayay jeclaysteen. waxay u bogeen haddii ay dumarkaas helaan waxa ay rag dheeraan doonaan. geesinimo iyo dhiiranaan siyaada ah ayaa midkood walba ku soo kordhay. cidihii ayay dhex galeen, iyaga oo ka doondoonaya rag garab u noqda oo waxa ay damacsan yihiin ku taageera. 7 kale ayaa markaa raacday. hashi ayay u gabadeen oo hadba geed u galeen. iyadoo markaa ceelkii ka soo fushay oo wabax ah ayuu Misdac wadada u fadhiistay. gamuun sumaysan ayuu addinka dambe kala helay. Qudaar ina Saalifna seef buu boqonta ku gooyey. dhulka ayay isbiliqday, markaas buu hunguriga kala gooyey. meeshaas bay ku baktiday. culays weyn oo dusha ka saaraa ayaa ka degay. waxay ka nasteen hami aad u ballaaran oo xasil oo idil u diiday. qoladoodii ayay ku soo noqdeen iyagoo u wada wax ay ku farxi doonaan. dadkii ayaa u soo dhoweeyey sidii loo soo dhoweeyo ammaanduulo dagaal ku soo guulaystay amaba boqor dhul idil furtay. or iyo sawaxan baa lagala hortegey. si walba oo qurux badanna waa loo ammaanay. waa kuwaas amarkii eebbe ku gacan sayray. waa kuwaa hashiisii boqon gooyey. waa kuwaa inta tadhahay kibirkoodii kibir dhaafay. waxay la soo baxeen wixii ay dhabtii ahaayeen. goodigii eebbe ayay fududaysteen. Saalaxna waxay ku cariyeen inuu ku rido beladii uu ugu dardaar warin jiray haddii ay tahay runtiis oo uu ka mid yahay kuwa uu eebbe dirsado. markaas buu ku yidhi, hadda ka hor ayaan idinkaga digay waxyeelaynta hasha. ha yeeshee waydun diideen, dembigiina waad gasheen. haddaba 3 cisho oo keliya aqaladiinna ku dhex raaxaysta. muddadaasi kolkii ay dhammaato ayuunbuu cadaabka eebbe idin haleeli doonaa, ciqaabkiisuna idinku dhici doonaa. kaasina waa goodi aan la beenin karin. waxaa suuragal ah sababta uu madasha ugu qabtay inay ahayd inuu rajo ka qabay inta aan la gaarin inay eebbe u noqdaan, dacwadana ay dhagaha u raariciyaan. hase ahaatee waxay ahaayeen qolo uu shakigu ka buuxsamay, baadilkuna uu oogadooda meel walba u xulay. wixii dignayn ahaa waxba waa u tari waayeen, caqligoodana waa adeegsan waayeen. goodigii Rabbi been iyo waxaan jirin ayay u qaateen. waxay ku adkaysteen inay nebiga quursadaan. cadaabka uu ugu dardaar wariyey ee uu uga digay inuu u soo dedejiyo ayay weydiisteen. kolkaas buu ku yidhi, tolow maxaad cadaabka ku falaysaan? maxaad naxariista ku diidan tihiin? bal inuu idin dembi dhaafo maydun eebba baridaanoo u toobad keentaan. waanadaasi waxba uma ay noqon, waxmana kama ay bedelin. waxay sii macaansadeen baadinimadii ay ku jireen. waxay ku yidhaahdeen, adiga iyo inta kula socotaba waannu sharaysannay. koox iyaga ah ayaa dabadeed meel ku shirtay. waxay isku dhaarsadeen goor habeena oo aan caddo ahayna gudcur ah inay Saalax u gabbadaan. isaga iyo qoyskiisa oo hurda inay si kadisa ugu galaan, halkaasna ay ku laayaan iyadoo aan cidina arkaynin. waxay ku wacatameen tashigaasi inuu noqdo mid qarsoodi ah oo aan iyaga dhaafin, ruux kalena aan loo sheegin. sidaas bay xumaan ugu koodeen. isaga iyo qoyskiisaba inay gumaadaan ayay isku afgarteen. waxay u maleeyeen cadaabka eebbe inay sidaas kaga gaashaaman karaan, ciqaabta ku dhici doontana ay shirqoolkaas ku baajin karaan. ha yeeshee
malahaas way ku gabsanaayeen loogumana kaadin wakhti ay tashigoodii xumaa ku fuliyaan. nebi saalaxdii intii rumaysay waxa uu eebbaweyne ka badbaadiyey cadaabkiisa, wuxuuna ku riday gaaladii xaqa diiday. halkaas baa waxaa ku fulay kuna hirgalay goodigii cuslaa ee ilaah, waxaana loogu hiiliyey rasuulkiisa. intii eebbe ka sii jeensatay oo nebigiisa diiday ayaa maalintaasna la rogay. gariir baa lagu gumaaday, waxayna ku muteen dembiyadii ay galeen. aqallada gudahooda iyaga oo ku jira ayay baaba'een, dib dambana looma arag, meel ay ku dhibceenna la isuma sheegin. guryihii waaweynaa ee ay dhisteen, xoolo wixii ay urursadeen, beera wixii ay qoteen iyo buuraha dhexdooda wixii ay aqalla ka jeexdeen, intaasiba waxba waa u lilayn waayeen. abaalmarinta xanuun kale ee eebbana waa ka dabaali waayeen. markii uu arkay cadaabka qoladiisii ku dhacay, siday guryahoodii u burbureen iyo meelaha iyagoo meyda ay daadsan yihiin, ayuu saalax nabadgelya korkiisa ha ahaatee aad u murugooday. kolkaas buu yidhi, tolow, fariintii eebbe anigu waan idin soo gaarsiiyey, waana idinla teliyey. ha yeeshee weligiinba ma aydun ahayn kuwa ciddii la talisa jecel.